السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمان صاحب الصوماليات بالكسر الجوكتان يسكسر الضوء والإنسان حلو راكسن وياي دقة حشق محمودها دمع عيسي دور شقف يقطع أي حاي صغيري كدي مركي قلمدك لقديدي أو صافر يستي جنرال عبد حسن عواري قيبديد إسلام مركان أو شاقي سمتوقي حسن الأرديو أن لور أمين إن لقي كرين دولة قولت كقلمدك وعن إذا لو ذاك دونا إن ير أو كمدا كلمة عبد قيبديد سجارا أخصائية قلمدك سيدو كله waxaan idin la wadaagi doonaa insha Allah taala xasan sheekh oo arrinkaas intuu ka carooday isaguna soo fadhiisay oday weyn oo kamid ah odayaasha abgaal odagaas oo isaguna aflagaado iyo cay bareer ah ugu jawaabay generaal Cabdi Xasan Cawaali Qeybdiid waxa weeye dadka waa loo jawaabaa oo muxuu ahay dawladda dadka taageerada waa difaaca laakiin waxa wanaagsan qofku hadduu qof waayeelayahay inuu xoogaa waxeeliyo laakiin sida CPB da caadiga ahayd ayaa Cabdi Xasan Cawaali Qeybdiid loogu gafay guriga beelaqaad ku jirta ilma noo shaqaaleysiya tilasan diidnay xoogaa waa waayeeloodo waa misalaf baa tahay adigu wax aan muxuu ahay qof weyn ku hadlin ayuu odagaas ugu jawaabay generaal Cabdi Xasan Cawaali Qeybdiid isagoo oo matalaya Xasan Sheekh Maxamuud taas oo ku tusinaysa Xasan sida uu durbo u kala qeybiyay beesha hawiye ama gaar ahaan haddii hoos loo degto beesha hera waxaan marka hore la wadaagaynaa Cabdi Xasan Cawaali Qeybdiid hadalkiisa quruxda badan oo specifically quseeyo galmudug kadibna odaga abgaal kadibna tacliiqeena iyo falanqaynteena ayaa kusoo gabagabayn doonaa adinkuna gacanta fura oo meel kasta gaarsiiya waayahay bal marka hore aynu daawano generaal Cabdi Xasan Cawaali Qeybdiid oo si gaar uga hadlaya doorasho qof iyo coda oo ka dhacda galmudug wax gaar galmudug ma laga qaban karo mana laga qabanayo haye ma laga qabanayo haye markii la waayo dariiq wax Soomaali u dhantahay haye hadii la waayo galmudug dabcan dadkeedu waa tashanaya haye meesha maalin badal baan ku ordahaya maalin ba galab labada gelin ka dal baan tagay madda galinka tagay sidaas ma shaqaynayso dalkuna waa ku dhumaya sidaas waxaan leeyahay baarlamaankii inaysan ku kadsoomin dalka kan meesha mugdiga oo ku sii socdo arinta iyada ahi in wax la iska yiraahdo waayahay aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay generaal Cabdi Xasan Cawaali Qeybdiid jaranku ma ay tamin si qurux badan oo dawladnimo ku jirto ayuuna u hadlay xaaladaha jira ayuu dul istaagay muuqaalkiisu u dheeraa oo dhowr iyo 30 daqiiqo ayuu ahaa laakiin inta naga khuseysay ku saabsan arrimaha doorashooyinka gaar ahaan galmudug intaas bay ahayd xasan sheekh oo arrinkan aad uga carooday baryahana aad u adeegsaday media ayaa wuxuu soo fadhiisay oday weyn oo abgaalisoo odagii meeshii la rabay inuu siyaasad ka hadlo aflagaado iyo cay ayuu ugu jawaabay Cabdi Qeybdiid waxaa kaloo uu dul istaagay kelmad Cabdi Qeybdiid uu ka yiri arrinka Axmedoobe iyo muxuu ahayd Xasan Sheekh oo uu sheegay generaalku in laga gardaran yahay muxuu ahayd Axmedoobe laba goor ayuu ku soo celiyay uu leeyahay waxa Axmedoobe soo hadal qaada ma hay waxa weeye balduqaas ila daawada qofka wax waa uga dhigi karaan meel haday uga dhagaan in xoogaa loo dul qaato waa fiicanta ninka waayeelna waa yahay waana nin soo shaqeeyay waxaan ogahay aniga madaxweynaha inay wax wal uga dhagan yihiin madaxtooyada dhici karta maxaa yeelay wuxuu degan yahay guri danguuda oo gurigaas tinta guuda in la oostado xataa looga dhagan yahay waa dhici kartaa marka waxaan rabaa madaxtooyadana waxaan rabaa nin waayeela waaye in la ogaadaa la rabaa asagana uu iska dhaafa Axmedoobe fiican iyo Axmedoobe saasa iyo Axmedoobe istaafkiisa inuu sukaansaday waa doorteen yiray wixii ku raacay waa fiican yahay inuu yiraaho ha laga shaafiyo waa xoogaa waa walax meel dheer uu tago meel dheerna inuu tago lama rabo senatarka dalkan dadka soo hogaamiyo ku jira taliyay ciidanka booliiska uu soo noqday wax badan uu soo noqday hal qandho waa ku ogahay maamul kastaba hadduu uu xoogaa bilaa ugu dambeeyo u gooyaa duqa waa aqaanaa ciidiid basaasoo ugu gooyay marka ugu dambeysoo u gooyay wax badanaana ka dhaco waa ogtihiin waxaan rabaa marka senatarow waxaad xala sheegtay
laba qodobaa u culays badnaay hal waxaan ka rabaa qoorqoor in meel leesla leeho ummadda ka dhaxaysa leesu sheegto nimaan beriga aniga wax gaara igu dhaamin inuu u sheegto dadkuu yidhaaha doorasho lama gey karo oo jooskooda asaga gacanta ku haayay ayaka walax u afduubanba ay u eg tahay galmudug duqa wax u afduubanay u eg tahay maamulka meeshaas ka jiray madaxweynaheedaan horti ka rabnaa inay abolojees ka baxshaan maxaa yeele wax khatar nagu awaaye waana la kala sooco waa inaan kala soocanana wax caadiya maahan cabdi meelow ka degan yahay qabiilkiisaa ka degan waa ka soo geliyaa waa nin haddii la kala baxay galmudug kala baxda sacad waa ana abgaalana waxa waaye xildhibaanaan ku leeh wax badanaan ku leeh in la yidhaha imaamo kartid waxa waaye walax damba reebaayo waaye walax damba reebaayana maamulka hadda jiraan ka rabnaa inay naga madax salaaxaan duqa waa u dhimraynaa waayeel waaye waayeel soo shaqeeyo waaye wax badanaa jiro waxa jirane mahaan laguma wada sheegi karo duqa waxa waaye xoogaa isagana hadduu saa'id ka dhigaayo ilma adeeryo qaraabuu leeyahay ha la qabto duqa gacanta ha lagu qabto aniga laba meel waa oga gurigaasna waa ogahay dekada igaarkayga ha la geeyo hebel ha lagu baxsho inuu yirana waa ogahay xasanna xoogaa iyo ra-iisul wasaaraha waa u cuntumi weysa meel ninkii jooga ooban dembi gelin oo shaqeeyow haayo sharafnow dalkan ka leehay igaarkayga iigu bedel waxa waaye walax hadda axmedoobaa raayo ka keeni karo ma dhammo waayahay waxay ila tahay warkaas xanafta leh ee odagaas ka soo yeeray inaad daawateen waxayna taasi ku tusinaysaa heer kulka xasan sheekh maxamuud halka uu gaarsiisan yahay odagani waa oday ka mid a odayaasha gobolka banaadir kun laga siiyo islamarkaana intay tagaan maqaayadda daba yare oo muufa ka soo cunaan miidiyaha soo aada si ay u difaacdaan labadooda kun aragtidiisu waxay ku eg tahay 2,000 ee laga siinaya gobolka banaadir waxaaga ilaashana waa la yiri isla markiina waxa weeye bahasha waxaa laga bilaabto qof habar gidir hadduu hadlo dhibaatada haysata cidii habar gidir waxa weeye qof kamid ah hadduu danaha ummadda Soomaaliyeed ka hadlo waxaa la leeyahay guri dawlad ku jirta xaaran cunaa tahay guri dawladda ka soo baxa halkaas ayaa waxay noqotay nabar laga xoqo iyagina way dacwo habaabeeno guryahan dawladda iskale abgaal inta ka qaado dawladdu ku cilma isaga iibsanay waxay ahayd marka maadaama haddii goof la aado goof abgaal uusan dhulkaani ahayn oo dhammaan dhulka dawladdu degantaa laga qaado beesha mursade inay istaagaan war annagu waxaan deganaa goofti mursade abgaal waxba la kamahay meel uu marsiiyo abgaal markaasi ma heleen laakiin way dacwo habaabeen taas ayaana keentay maalin kasta in maxaa lagu handado ka soo baxa guryaha dawladda guriga dawladda nolostan u diidno maxaa tay wiilkiisa wiilada ka dhahlayiga qoraysan diidno ma aha qof kale joogo wax dambiye geesaa loo raacdayhaya axmed obaasaan soo leeyahay adogu waa musalaf oo isagu ma ka yariya waa waayeel kale waxa weeye aad iyo aad ugu xumahay janaalka wax ku dhacay laakiin anigu waxaan ogahay jalaal cabdi qaybdiid inuusan war badan ba aqoon war badan oo tira badan bahash markay halkaas gaarto qorigu qaataa isagu war wax kuma xalliyo waxa weeye uu hadlay wixii ku jira uu sheegay haddii marka hadalkiisa hadal in lagu celiyo la damco cabdi qaybdiid meel kale uu aadayaa meeshaas waa in qoriga qaato waxaan xusuusanaa berigii maxaakiimta iyo hogaamiye kooxyadii muqdisho dirireen ee hogaamiye kooxyadii intoodii badnayd ay go'aansadeen inay muxuu ahayd dagaalka ka baxaan cabdi qaybdiid inuu diiday uu yiri wallahi kaligii baan la dirirayaa maxaakiimtii oo hogaamiye kooxyadii kale ka adkaatay buu 3 maalmood kaligii ku dagaalamaya saybiya markii dambe loo tabar sheegtana waxa weeye waa kii inta baxay gaalkacyo ka soo hadlay ee yiri col iyo nabad mid ku imaadaba xamar baan imaanaya wuuna yimid waxa weeye marka galmudug haddii cabdi qaybdiid yiraahdo doorasho ka dhicmayso sababtoo ah anigu hadda madaxweynaha galmudug waa saaxiibkay axmed cabdikaari caqli badan baan ku ogahay u malayn maayo inuu wajahayo dagaal galmudug dhexdeeda ah ama habargida dhexdeeda ah sababtoo ah wuxuu ka faa'iideeyay ma jira haddii cabdi qaybdiid halkaas doorasho ka dhicmayso waxa weeye qorqor wuxuu ku qasban yahay inuu yidhaa xasanow hadda annaga rabshahana gelin balaayada adugu aad maaragtay
la wareegayso annaga hanoo keenin ugu dambayna baasha halkaasi tegi doontaa janankana waxaan leeyahay warka aad tiri ayuu hawiya kugu raacsan yahay maanta waxa loo baahan yahay waxa weeye badbaadada dalka kelmad kale tiyo weyn baa jirto ah weligay isma ora hadda ka hor Soomaaliya ama la waayaa waxa weeye halkaasi taagan tahay Soomaaliya waa la waayaa haddaan maanta rag u istaagan lahel rag waaweynaa ee hawiye ee waxgaradka ahaa adiga ka haray waxaan leeyahay beesha hogaami diidna xasan sheekh maxamuud waxa uu wada cid ku qasbi kartaa ma jirto weligaana waxa weeye qoor qabad biyo laguma cabsiin maanta lagu cabsiin maayo beeshuna garabkaaga taagan tahay warka abdi qaybdiiri ayaan ugu dambayn u dhahan beesha hawiye ummadda Soomaaliyeed kale waxaan leeyahay xasan teedhada inaan keeno annagana la ka yaqaan ummadda Soomaaliyeed doorasho waa inay u diyaar garowdaa oo halkaas markaasi lagu tartamo ninka soo baxana uu noqdo madaxweynaha soo socda ee Soomaaliya barnaamijkayga intaasaan ku soo gabagabeynayaa hada bilaa tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh